السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا قاليقا أي هالكا نغا داوانيسا إذا الأهانتين وحايد لنا هاي هدي مالك وتاهي مالي وناكسن هدي هبيك وتاهي وناكسن هداد فضلا وعصبتا هاي سبسكراب إنوصار شير لايك كومنتي حقي نوايه إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى هالكا نغا سعطان وحوايه وجنا الكنيسة مير ورقتو إيمانتو وحمات إذي فرديو وحوايه وحسن محمد ينجح علي موسى oo idinkaga soo tabin doono barteena YouTube aan ku leenahay Samiir Wareegtooy waxaan idin leenahay dhammaan asxaabteena qaaliga ah ee halkan naga daawan doonta waxaan macnaha aan idinla wadaagi doonaa biidnillaahi tacaala baraha bulshada ee haddeertaan waxa ku socda hana oo macnaha ay tahay gabar Soomaaliyeed laakiin ay haysata dhalasho Sweden hana maxay macnaha ay sameysay ama hana maxaa ku kalifay in ay waxyaabahan ay sameyso waxyaabaha ku kalifay waxaan rabnaa inaan ogaano biidnillaahi tacaala maadaama hadda ay arinta waxaan rabnaa inaan ogaano waxyaabaha ku kalifay dhibaatada tan inay Soomaali u geysato awal hore Soomaali iyadoo iska dhibaataysneed ee dhibaatada ay ku jirtay 30 sano in ay dhibaato kale ay ku soo saaciday wadanka dhibaatooyinka ay ku soo saaciday wadanka wax kale ma aha ee dhibaatada ay ku haysa caruurta Soomaaliyeed hooyooyinkii aabiyaasha kala soo carray wadanka qurbaha wadamada qurbaha ay kala soo carreen awlaadooda si ay macnaha u tarbiyadeeyaan ee wadankooda hooyo si u bartaan luqadda afka Soomaaliga ah ay u bartaan diintooda ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku manaystay fiican iyadoo sidii ay tahay ay dadkii kala soo carreen wadanka kala soo carreen hana maxaa ku kalifay in ay kaga daba timaado wadankii hana maxaa ku kalifay haddii xitaa ay dhacday inay wadanka ay kaga daba timaado oo ciyaalkan Soomaaliyeed ee loo soo celi dhaqan celinta loo soo celiyay ee waalidkooda la soo carray ee miyaysan iyada laftirkeeda aysan lahayn awlaad miyaysan ka naxaynin ciyaalkeeda ka naxaynin maxaa kalifay in macnaha maanta ma aysan ogolaan lahayn in iyada laga oysiyo ma aysan ogolaan lahayn in laga oysiyo hooyada laga oysiyo ma aysan ogolaan lahayn walaasheed in laga oysiyo ma aysan ogolaan lahayn maxaa kalifay iyadoo shakhsi ah in Soomaali weyn oo dhan ee dunida dusheeda ku nool macnaha Soomaali idil ahaanteeda in ay ka qaylisiiso maxaa sababay waxyaabaha sababay kulli waxa waaye qof walba waxa wax laga weydiiyaa qofkii la joogo markii waxaan ogaan doonaa sababaha iyada macnaha ay ku kaliftay inay macnaha ay ciyaalka Soomaalida ay u xaddo qaabkay u xadda naqshadaha ay u qaadan jirtay iyo qaabka macnaha iyada ay sheegaysa afkeeda ka sheegaysa waxay tiraahdo kor Muqdisho nimaaday gabar baan ka qaaday Itoobiya baan geeyay gabadhaas Muqdisho u dhalatay maxaa Itoobiya ay ugu qaaday sababta ma isweydiin kartaa Itoobiya gabar Soomaaliyeed la geeyay maxay naqan doontaa maxaase lagu sameeyay mise ma nooshahay mise way dhimatay wax yar nala daawada clipkan insha Allah biidnillaahi tacaala gabadh baa waxaa jirta aan ka soo saaray Muqdisho hadda ka hor gabadhaas Ethiopia baan geeyay seriously gabadhani caruurta inta kaliya kala baxdo qaarna ay goofiso ay qaarna kiniisadaha u geysaa waa wax cad wey maaha wax mar walba ay fadhisba ma ahayna sida ilmaha ku soo xada idin sheega horta koow reerka wacay ani tikidna ma jirto hotel lama bookin gareysto horta sidee ku soo xad ma ay tiraahdiin oo idin waxaan sameey motion kan daga idin sheega gabar Sacdiye la dhahay oo noo imaan jirtay aajirta Sacdiye gabadh waxa soo indhi jir mahrad baan nahnay gabadha Sacdiye la dhahay ani Sacdiye israacnay been ma idin sheegay waxaan gashtay baati waxaan gashtay laba kaba oo kala gadis ah laba kaba oo kala gadis aan gashtay been ma idin sheegay laba kaba oo kala gadis baan gashtay sida ilmaha ku soo xada idin sheega horta koow reerka wacay waxa dhaca idin sheega ninka qurbu ka imaaday guri sar u degan yahay oo villa ah oo qurux badan reerkiisa u jooga ilmaha meesha looga hayo habardiyo macaan ilmaha way baashaalayaan waxaan baxay laba kala dacsaa xirtay
gorgorada jeexan baan gashtay huruud baan gabsa waxaan sameeyey jalaabiib madow ah masaqa maqasaan ku jarjartay laajadani waa afre waa beriga ku hadlay maxaa la iska qaadaa abuu ilmaha gargaraaxa ku dhash shaqa ma rabtii dharkaa idiin dhaqaa wax kale ma idiin sameynay wacadalla dharkii baan u dhaqi jiri hal waxaa ii harsan ninka ilmaha aan ka soo xaday inaan waco intaa waco wallaahi aan dhaa iska kii cafi ana xur baata elaboorkan dad noolaa iska daa ehe wax walba kaargo dad noolaan kaaga saari kara don't worry dad noolaan kaaga saari kara dib dambe oo maanta arrintan iska dhiga tiri kartaa oo waa cid ayada la shaqaysato oo keliya أنا واحد بسنة حتى قبل ما هبين دود وري سيدي ظاهر على سوء dadkaas oo dhan dadka la shaqaysta ayada oo group kala oo ku xiran oo ay dadka beerkooda isla cunaan inay yihiin ko midda labaad qofka markii uu ka taga arxanku waa markuu already dhiig cuno waa markuu xoolo dhiig laga bixiyo cuno waa markuu orgaan cuno naagtan arxanku waa ka tegay hadda way absenta marka ay saas ku sii xigtaa inay ka hadlay waxaan aaminsanahay groupka ay wax la qalato waayo waxa ay la hadlay oo meel gooniyo iskula jiraan groupkii marka hadalkan ka banaanka uga soo saaray dadka marka waxa u soo qabsaday oo kaliya adoo raalli iga ah dadka reer Swedishka oo qolka wayba caawa qadka xirta shiiqa ku jira please inta kaliya qaada turjuma dawladda Sweden u geeya inay criminality ku haydo dad masaakiin ilmo agooma ummad aan dawlad sax lahayn oo dhibaataysan oo tribalism iyo dhibaato ku dhex jirta inay dhibaato naagtaan ku haydo dawladda Sweden oo sharcigooda sidato horta dadka reer Swedish inta naf iska baartiin laba jeer dhima meeydiini hal la turjuma naagtan codadkeeda hal la dacweeyo Sweden dacwaha laga dhigo that's one thing secondly lama yaabayo aniga dawladda Muqdisho joogta iyo askarta Muqdisho joogta midna lama yaabayo laana baarlamaanka aaba waxay al-shabaab oo askarta al-shabaab oo marka criminal wax qalanayo oo ma aragtay oo kanibal inay noqdaan waxba lama ahan oo la shaqeeyaan qof kanibal naagta lacag ay xambaarsan tahay halka kaliya hay xasan adiga maxaad ka leedahay gabartan Soomaaliyeed يعني أنا عن دمقشة Soomaaliyeed ama dhiig Soomaaliyeed oo aan lahayn oo qaadaysa caruurta Soomaaliyeed oo ka ganacsaysa caruurta Soomaaliyeed oo haddana diintii islaamka oo qaaliga ahayd oo Ilaahay noogu naxariistay Ilaahay noogu nimceeyay ku dheeshay oo faasiqada maxad ka dhihi lahayd wallahi najaxay horta run ahaantii bini aadanka sidiisaba dunida tan ku nool way kala yihiin yani qofna wuxuu raadiyaa halkaas wax u mara yuu raadiyaa qofna magac uu raadiyaa kulli hana Abubakar ma aqaan wax ku kalifay in ay dhibaatada noocan ay sameeyso kulli aan waxaan isleeyahay hunguri baa u geeyay waayo xibin kamid ah xibinta bini aadanka inay iibsato yani lacag yar ma aha waxa waay keligeeda la iibiyo waxa waay adduunyada yani markii adiga xaraash ay tahay way ka lacag yar tahay markii macnaha ay sida kale loo iibinay kulli naf bini aadam bay xaraashtaa sida macnaha yani aniga ma ogi in ay macnaha ay falkaas sax inuu yahay in kala ma ogi Allahu a'lam laakiin waxa la dhahay nin dhagool ahaaba farta lagu fiiqayo mar Allah markii farta lagu wada fiiqo yiri warsuga anaa gardaran markaas aan yiri maxaa ku ogaataa inaan gardaran tahayo dhiga ma maqashid waxa ma maqashid see ku ogaataa inaad macnaha gardaran tahay markaas uu yiri intaas ummad gacanta markay ugu soo fiiqdaan arkay qaladkayga waa qaatay inaan gardaranahay waan is ogaaday كل إنتاس وأمض واحد قيليسية معناه هنا أفكار كربح اللقطة هاي كل وحوي كجرا وعليه كرا لكن درين كمان معناها بني آدم إلهي سبحانه وتعالى قف جسمي جس وكبهره أنا ما أقان هنا حل جلجب بحي قرن مايو ما يران تذا لجب بحي موين كذا لجب بحي مكة القرن هاي هلا كويدينا هاي هلا
ma bini aadin baa mase waa dugaag yaa kala garanaya horta taas allahu aclam yani ani waxaan isdhihi karaa waa dugaag waayo dugaaga sidiisaba wuxuu ugaarsadaa ibni aadanka u ugaarsadaa ani waxaan u arkaa marka in macnaha dugaag ay tahay waxaan saas u leeyahay dugaag inay taan u arkayaa waxa laga sheegaya hadday run yihiin dee waa iska dugaag haddii aysan aheenna kolley ku dambaawi mayno waa gabar walaasheena soomaaliyeed laakiin kuna raaci mayno qaladaad oo iyada ay gashay ku raaci mayno marnaba soomaalinimaan ugu raacaynin si kalaan ugu raacaynin okay maxaad ka leedahay waddanka soomaaliya waa waddan baa halagaleena hadda hana unbaa ku haynaa hano maadaama aan hadda xanuunkeedu nahayo laakiin waxaa jira dad badan oo ka ugaarsada waddanka soomaaliya oo ka ugaarsada caruurta soomaaliyeed oo waddanku ma laha dowlad ma laha xuduud ma laha qof daarta dadka ma laha sharci lagu soo galo maxaad ka dhihi lahayd wadda dowladda soomaaliya waxaad dhihi lahayd run ahaantii meeshaan najaxay waxaa meesha taallaa waxay tahay waxa waaye lacag soomaaliya maanta waqtiga hadda la taagan yahay lacaga ka shaqeysa midda isweydiinta mudana waxaa ah soomaaliya waxay leedahay dad isku sheegay inay mas-uul ka yihiin dadka waxaa jooga dad yiriheen dadka anakaa ka mas-uula oo u tunteen xabadka u tunteen si fiican yacni maxay ku dhacday hadda hana unbay soomaalidu ku haysaa laakiin aniga waxaan cindiqaadsanay soomaaliya hana dad ka badan anna aan u dhalan waddanka oon ahayn soomaali inay qashaan caruurteeda inay xeeheeda bilidaqaystaan inay 24 saac ku dhagan yihiin oon cindiqaadsanahay adu maxaad isleedahay okay najaxay horta waa runtaada mushkilada meesha taallaa waxay tahay yacni ninka caddaanka ah ha jooga xalana ha joogo ama ha joogo meel kale ha joogo ninkan ajnabiga ah ee gudaha soomaaliya jooga waxaa u shaqeeya soomaalida u shaqeysa waxay ku shaqeysaa $100 iyo $50 waxaan ahayn waxaa leeyahay cunug ii kan $100 qaado cunug iyo $100 u qaadaysan ma aha dareen soomaalinimo ma laha yacni maba arkinba dareenka soomaalinimo ma arkin bal hadda anaga waddan qurbaan joognaa ilaahay baan kugu dhaarshay cunug adi aada dhalin elboorka ma kala bixi kartaa elboorka iska dhaaf wadada xataa lama mari karo marka iska daa mid aada dhalin iska daa mid adi aad dhashay oo bilaa sharci ah elboorka ma kala bixi kartaa elboorka iska dhaaf cunuga aan dhalay haddaan wadada la maro hadduu xadkiisa ka badan ooyo waxaa leeyahay cunuga ma aadan dhalin haye marka Soomaaliya nala sii dhegeysta asxaabi bal sii dhegeysta fadlan haddaad macnaha aad nagu cusub tahay noo sii share garay insha Allah biidnillaahi tacaala oo subscribe inoo reeb insha Allah wax walba hana ay ku saabsan yihiin waa idin soo gudbin doonaa insha Allah ilaa mawduuceeda oo ka dhamaado biidnillaahi tacaala waxaan idin leenahay sida qiimaha badan aad noo daawataan waa idinkaga mahadcelinaa waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka dhigo kuwa macnaha had iyo jeer wanaagga jecel xumahana ka dheer allah ha idinka dhigo aan sii barnaamijkeena aan sii wadno waa kana bal haddana ila sii dhegeysta fariinaha kale ee soo dhacaya insha allah halka kaliya $50,000 ku gaday halkaas kaliya 5 sano uga adeega kartaa xamar waxa waaye marka anigu hal qabta iyo il gaar ah lagu fiiriyo wixii caawa ka dambeeyay ma taagin meesha lagu arko nafta looga qaadan taagana meesha lagu arko nafta nafta looga qaadan taagana ama xabsi daa'im lagu geli waana maasantiin dadku hurdada ha ka jawaad ku maasanta inaad booliska la wadaagtay xamarna ha ka quusan ninka leer Cabdixakiino la wadaag ayaga naftirkooda intaas isleedahay waxba ku dambeeya la wadaag oo sheeg oo naagta umada masaakiinta ilmaha maanta gabar yar galkacyo lagu qabtay oo ooyeysa waxay tiri xamar alle waxa la iga soo xaday ka xada meel la dhoo xamar dhexdeeda ah naaga isoo wado naagtina marka inta marsiinayda iga carartay hadda dhow mar saacado ka hor ana xamar ero la hadla waxa la ii sheegay gabar yar oo dugsi u socotay iyo wiil yar oo baby oo guriga hortiisa ku ciyaaray labadaasna galabta in la waayo waa la soo sheegay oo labadaba laba xaafadood aad u kala fog lagu waayo
naagtan hal iyo laba maahan waa million isku xiran ayadoo marka waa actrishadii filimka barkii mataleedii ninka aeroboortka u joogana waa atoorihii laakiin naagtan haddii la qabto waxaan aaminsanahay in wax badan isbedelaya waayo naagtan in naxda male waxa hadda ka bacdi meesha lagu arka naagta nafta in looga qaado way malaayiinta soomaalida ee dhimana miyay naagtu ka qaalisanta waa maya hanana warkeeda way cadaysatay waxay tiri kalmada fiiriya nin baa jiray tiri arrintan dhan ugu waxeeyay dhahday magaciisana inaan sheego okay adiga haddaad wanaag samaysay inaan magacaaga sheega miyaa mise waa inaan qariyo waa inaad sheegtay warda wanaag samee magacaaga thank you so magaciisa waa inaan qariyo that means qofkaas uu isla shaqaystaan naaxay sheegin biro qof bulshada caan ku ah oo la yaqaano oo isqarinayo wuxuu yiri magacayga ha sheegin wax walbana waxay tiri magacaaga inaan sheega maaha ninka ilmaha aan ka soo xaday inaan magaciisa sheega maaha waa taqaaniin bay tiri Soomaaliyeed iska badan indhaha istiraysiin indhaha istira oo leedin waligeena la qalan jiraan la qasho hadii kalena hadda ilmaha dhallaanka hala badbaadiyo taas oo laysay naagtaan meesha joogto hadda ha lagu xiro dawladda iskaleena ha loo soo wareejiyo taasee maxaa kaloo la qabanayaa hadal kaloo meesha yaala ma jirto waxay dhan ha lagu ayadana waxay wada wadaa ha la wada furo maxaa la barya intii laga qaado adduunka waad aragtay aeroboort dadka bixisoo laga shakiyo si lagu baa يعني aniga ma dhihi karo qofkaani waxay heeday waa qof dhiig bini'aadanimo leh ma dhihi karo balse ra'yiyahaan waxaan leeyahay naagtan hadda hadday dhacday oo gacanta lagu haayo mar dambe wadan hebelay u dhalatay ama wadan hebelay heeday yaan la dhihin waa gabar Soomaaliyeed hala marsiyo xuquuqday leedahay hala marsiyo leedahay horta hana ani waxaa horta ila qaldan in hadda la yiraahdo halo report gareeyo Sweden maadaama sharci meesha ay ka haysato halo yani hal wadaago yani waa sax shalay wadanka burbura ka dhacay burburkii dawlado badan ka faa'iideystay baasabooro dadkii la siiyay maanta ma matalaan Soomaali ma matalaan ee waxay matalaan dalalka iyaga baasaboorada ay haystaan ayay matalaan hadday naqato shaqo ahaan hadday naqato iyaga ay u shaqeynayaan hadday naqato jaga hadii la dhahay iyaga jaga u qabanayaan wax walba oo macnaha qofkaas oo asaga ku soo gudboonaada caafimaadkiisa waxa mas'uuliyad dusha saaranaysa wadanka asaga hadeertan oo sharciga ka haysta marka maadaama jinsi ahaan Soomaali ay tahay laakiin dhalasho ahaan Soomaali ay tahay laakiin ay qaadatay jinsiyad kale ay qaadatay yani waxa la sameyn karaa hadii dawladda Soomaali laga helo in dawladdaas lala hadlo la yiraahdo gabadhan asalkeeda waa anaga wadankanaga qalad ka gashay ee dhibaato u geystay ciyaal badan baan ka taweynaa oo ciyaal badan bay dhibaato u geysatay marka sidaa ajligeeda maadaama sida ay tahay waxaan ka codsanaynaa dawladda Sweden oo aan kaga mahad celinaynaa inta ay noo heysay ay abaal noo gashay gabadha Soomaaliyeed inta ka qaangaartay noo heysay noo ilaalin jirtay caafimaadkeeda wax walba yani waan kaga mahad celinaynaa laakiin xilliga hadda la taagan yahay waxay macnaha ay dhibaato ku tahay ummadii Soomaaliyeed dalkii Soomaaliyeed jiritaanka Soomaalinimada intaba macnaha waxay ku noqotay dhibaato marka sida ajligeeda waxaan idin leenahay dawladda Soomaaliya in ay ka dhidiyaan dhibaatadaas ay ummadda u geysatay waa inay macnaha gacan bir ah ay ku qabtaan gabadhaas ee cadeemo badan ay hor dhigaan Sweden ay u horgeeyaan ay yiraahdaan intaas kiis baan ku haynaa qofna dulmi qof ku raaci maayo marka waxaad sameysaan biidnillaahi tacaala dawladda Soomaaliya in waxaan ka rajaynaynaa arrinta tan ay meel fiican ay kaga timaado inkastoo oo ay iska naqatay adduunyada iska naqatay lacag oo qoftaana silsilad ay yihiin ay dad macnaha had iyo jeer silsilad isku ah oo lacag beri ka maalin la bixin doono haddii kiiska xitaa uu ku cadaado lacag lagu soo furdaamin doono taa ayay dhicin gabadhu ma waxay ahayd Soomaaliyeed ba ma soo masiixiyo waxay ahayd Sweden
way ka baxda Soomaaliyeed horta waxaa la isku hayaa gabadha inka hadda baraha bulshada kulley markii hore aniga hadii gabar Soomaaliyeed oo muslimad bayno ahayd markay soo galeysaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hasbunallahu wa ni'mal wakiil la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ay jirtay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin iyo jirto xijaaban oo xirxiran markii hadeertaan ay ceebaheeda banaanka soo baxeen waxaan arkay weligay wallahi kuma arag baraha bulshada hadda aan ku arkay iyadoo macnaha sawiradeeda shiishad cabeesa iyadoo macnaha saliib ku xiran yahay iyadoo dhinac ka qaawan tahay iyadoo macnaha nooc kala ah iyadoo waxyaabaha lagu sheegayay macnaha la dhihi kara alla ilaahay waarun loo soo qaatay saliib iyo kaniisad iyo waxyaabo badan la soo qaatay la leeyahay marna diinta muslimka ku dhuumataa marna tangaalada macnaha ay ku shaqaysataa marka yani xaggana waa jiraa waaye yani qofka bini aadanka caqiida jirta qofkan caqiidadiisa haday dhunto waxa waaye يعني لما دي كرو يعني قفك بلا عقيدة يعني بني آدنا لو ما تلمام كرو قفتان عقيدة دي باكرونتي عقيدة دي بيويسي يعني أنا ودري بكرتها قفك هدي عقيدة وصل لهين لا ولا وحب معها قفكاس يعني مرنا وحوز يهي دين تادو كو قبنا يا وكل يهي إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم هذا القصة وحان كرمنا دولة الصوماليات شعب الصوماليات ويوينك الصوماليات وحان كرمنا إني ددالان أو في ردار ولا هذا ضمك السوقلا يقولوا هذا دولة الصوماليات وحان كرمنا ضواج السوقلا يقولها يا صومالية ناي إلا بار أنا وحنو دشي صومالي وحان ديار واحد دا كده إلى بارك إلي بيعاد ماشي كسوق جذي ماشي كي بدين لا يبارو هلا بارا دتك ماشي كي بدين إيه ماشي ولا شيء هلا وقع